أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين magacaygu waa cali xirsi kaarshe halkan waxaan kasoo gudbinayaa fariin yar oo ku socota dhammaan bulshada Soomaaliyeed siyaasiyiin waxgarad iyo dhalinyaro culumo rag iyo dumarba meel kastoo ay joogaan haddii ay yihiin shaqaale dowlo iyo haddii ay yihiin rayid iyo haddii ay yihiin shaqaale qaasa ama private barnaamijka yarkaa waxaa la yidhaahdaa dhalinyaroy iga dhaxal intaana dhiman dhalinyaroy waa iska leeyahay laakiin qof walba way ku socotaa laakiin dal waxaa badbaadiya ama burburiya waa dhalinyarada ayaa loo adeegsadaa dagaalada dhalinyarada ayaa rabshadaha loo adeegsadaa dhalinyarada ayaa kicinta loo adeegsadaa dhalinyarada ayaa difaaca dalkana mas-uulka ah marka dhalinyaro halkan waxaan kaga soo gudbinayaa waxaa laga yaabaa inaanan dib dambe isku arkin ama isku maqlin laakiin fariintan oo mar lumadaha ay ku jirtay ayaan jeclaysa caawa inaan idinla wadaago waana fariin kooban fariintani waxay tahay horta haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed ama bulshooyinka Soomaaliyeed maxaynu wada leenahay maxaana kala leenahay maxaa naga dhaxeeya maxaanse naga dhaxayn haddaba dhalinyaroy waxaan wada leenahay qaranka Soomaaliyeed oo ka kooban dal dad iyo wax kasta oo ku dhex nool qaranka waxaa ku nool oo uu leeyahay hanti wuxuu leeyahay sharci wuxuu leeyahay xuduudo wuxuu leeyahay calaamad wuxuu leeyahay dhul haddaba intaas way naga wada dhaxaysaa dhulka uu qarankaygu ka kooban yahay wuxuu leeyahay xuduudo waxay naga dhaxeeya ilaalinta dhulka ilaalinta xuduudihiisa ilaalinta sharcigiisa ilaalinta qawaaniinta iyo dastuurada u yaala waxay naga dhaxeeya hantida dhex taalla ilaalinteeda waxay naga dhaxeeya ilaalinta deegaanka sida dhirta harooyinka webiyada balliyada iyo duurjoogta ku dhex nool haddii ay tahay ancaamta xoolaha la dhaqdo iyo haddii ay tahay dugaagga iyo ugaarta xalaasha ee la cuno sida deerada biciidka maxaa la yidhahdaa ishag dameer farowga loogisida sagaarada cawsha yacni ugaarta ilaalintooda way naga dhaxaysaa waxay naga dhaxeeya hantida aynu wada leenahay ee guud ee dhulka dushiisa saaran iyo midda gudihiisa ku jirta dhulka guntiisa ku jirta waxay naga wada dhaxeeya hantida badda ku jirta iyo waxa gunta ku jira ee kasii hooseeya waxay naga wada dhaxeeya ilaalinta sharciga aynu ku wada heshiinay ee qaanuunka ah ee sharciga dastuuriga iyo midka xeerarka dalka u yaalla ah waxay naga wada dhaxeeya difaaca dalka iyo u istaagista qarannimada Soomaaliyeed qaran haddaad maqashid waa dadka ilaalintiisa ayaa naga dhaxaysa sharaftiisa qiyamkiisa dhaqankiisa iyo magaciisaba inuu qofka Soomaaliga ah difaaco oo ilaaliyo waa waajib muqadas oo saaran weyn waxay naga dhaxeeya inaynu ilaalino sirta dalka uu leeyahay dukumiintiyada dalka uu leeyahay taariikhda iyo meelaha taariikhiga ee dalka uu leeyahay waxay naga waajiba inaynu ilaalino hantida dalka uu leeyahay oo ay ka mid tahay hubka oo ah kii lagu difaacayay xanshuurta dalka lagu soo gaday iyo dhaqaalihii laga qaaday waxaa nagu waajiba inaynu ilaalino calaamaadka dalka uu leeyahay sida calanka loogada sida maxaa la yidhahdaa ishag lacagta oo kale waa waxyaalaha uu dalku leeyahay oo muhiim ay tahay inaynu ilaalino maxaynu kala leenahay waxaynu kala leenahay oo keliya magaca iyo abtirsiimaha iyo hantidii aan qaas u leeyahay oo ku jirta hantida anigu aan dalka ku leeyahay sida gurigayga iyo beertayda iyo maxaa la yidhahdaa isha ganacsigaygu waxay guud ahaan ka mid yihiin hantida qaranka laakiin aniga ayaa qaas ahaan u leh oo aniga ayaa anfaceeda si qaasa u isticmaalaya aniga oo haddii dhaqaale soo galo canshuur ka bixinahaya dad ka shaqaalaysiinahaya mushaar ka siinahaya haddii saka lagaga bahdana ka dhiibayo masaakiinta si looga quudiyo
wax kale oo aan kala leenahay haba yaraatee ma jirto. sidaas awgeed haddii aad tahay siyaasi iyo haddii aad tahay shaqaale dowlo iyo haddii aad tahay ciidan, intaba waxaa waajib kuga ah inaad waxyaalahaas aan soo sheegay oo dhan aad ilaalisid oo aad si waajiba oo qasaba oo sida aad naftaada iyo reerkaaga u ilaalin lahayd aad u ilaalisid. fariintaasi waxay tahay haddaad siyaasi tahay dalka inaad sirtiisa ilaalisid, dalka inaad interestigiisa iyo waxyaalaha uu maxaa la yidhahdaa ishag uu sharaftiisa burburinaya inaad ka ilaalisid, inaad qaranka aad u taagnaatid oo qaranka aad matalaysa aadan khiyaanin, inaadan dal kale u shaqayn, inaadan danta ummadda Soomaaliyeed aadan ka hor imaan. waxa keliya oo aan ku kala duwanaan karnaa waxay tahay arrimaha fikirka sida dalka loo hogaaminayo. kaas sida ilaahay noogu kala duwan magacyada iyo muuqaalka ayaa ilaahay ugu kala duwan fikirka. laakiin yaysan dalkayaga iyo dadkayaga iyo qarankayaga iyo xuduudahayaga iyo sharaftayaga iyo jiritaankayaga yaynaan ku baabi'inin inaan kala fikrad duwanaano. yaynaan u arkin hebel baa xukunka haysta iyo hebel xukunka ka tuur, cadow kale u soo wado oo qarannimada Soomaaliya ku burburi. taasi marnaba macquul ma ahan, cidna laga yeeli maayo, mana ahan maxaa la yidhahdaa wax in lagu fakaro ama lagu maxaa la yidhahdaa laisku soo qaado ama la qorsheeyo meeshaba imaan kara ma ahan. haddaba dhallinyaroy mid ogaada, waxaan kala leenahay oo keliya fikirka ayaan ku kala duwanahay. fikirkuna waa marka uu gudaheenna yahay. sidaas awgeed kala duwanaanshaha aragtiyadeed ee aan kala leenahay yaynaan u isticmaalin burburinta qarankeenna iyo jiritaankeenna aan wada leenahay. marnaba yaysan maskaxdayada gelin inaan hebel siyaasad baan uga duwanahay aan dalka iyo xuduudihiisa iyo hantidiisa iyo qarannimadiisa iyo sharaftiisa inaan u burburiyo, yaysan marnaba maskaxdayada gelin. si kasta oo aanu kala maskax duwannahay, hal dal baan nahay, hal dad baan nahay, hal ummad baan nahay, hal waddan baana leenahay. beriyo maalmo aan noolaado oo aan lacag iyo xoogaa adduunyo aan helo, waxaa igaga sharaf wanaagsan inaan dalkayga ku noolaado sannado oo aan sharaf ku noolaado oo aan ku dhex baahdo, anigoo og haddaan dalkayga iyo dadkayga u istaago inaanan ku dhex baahanayn oo aanan ku dhex baktinayn. laakiin waxaa laga yaabaa inaan inta malaayiin lacaga qaatay aan berri ka baktiyo oo aakhirana ilaahay uu igu cadaabo, adduunyadana aanan sharaf uga teginin. haddaba waxaad ogtihiin walaalayaal, ummadda Soomaaliyeeday dalkayaga hadda inuu cadow badan leeyahay oo meelo badan ay weeraro uga soo socdaan, haddii ay tahay Afrikaanka kuwa aan deriska nahay iyo kuwa naga fogba, haddii ay tahay kuwa carabta jaamacatu carab Soomaalidu kula jirto, haddii ay tahay kuwa islaamka ee magaca islaam sheegta, haddii ay tahay gaalada reer galbeedka ee Yurub iyo Maraykanku ay hogaaminayaan, haddii ay tahay Ruush, haddii ay tahay Shiine, haddii ay tahay Hindi, haddii ay tahay Iiraan, haddii ay tahay Australia, Soomaaliya maanta waxaa ku soo socda mawjado siyaasadeed iyo mawjado weerar oo aysan iska difaaci karin haddii aan loo midoobin. ummad waliba, dal walba waxaa difaaca dadkiisa, khaasatan dhallinyaradiisa. haddaba siyaasiyiinta waxaan kula dardaarmaya, war haddaad dalkan doonaysaan inaad xukuntaan oo aad maamushaan, sharaf iyo wanaag iyo qadarin ku maamula. waryaan sharaftiina haddii ilaahay kuu ron yahay dalkiina baabi'in. maantay waxay Soomaaliya halis ugu jirtaa inay jiritaankeedu lumiso, inay qarannimadeedu lumiso, in calankayaga la dejiyo oo nala geliyo in maaragtay maxaa la yidhaahdo under trustship ahaanaysaan ama waxaad kuwaas noolaanaysaan qaramada midoobay ama ururka igad baa idiin talinahaya ama siyaasaddiina waxaa jaangoynahaya ergey qaasa oo la yidhaahdo UN-ku ka socda. taasina waxa weeye waxaa keenaya siyaasad xumada iyo fikirkayaga aan ku kala duwannahay ee ah sida dalka loo hogaaminayo oo aan dibadda u gudbinay oo sirtayadii la ogaaday oo qarannimadayadii ay halis ku gashay oo la yidhi dadkani maba astaahilaan inay qaran noqdaan, maxaa yeele sirtoodii ayaaba bannaanka iska taalla. maantay dalkayaga sirdoommada kale ee reer galbeed hadday tahay yuhuud iyo hadday tahay carab ayaa nooga xog ogaalsan waxa ka dhacaya. wax badan aan anaga ka ogeyn ayay ayagu ka ogyihiin. dagaallo badan bay ku galaan, duqaymo badan bay ka fuliyaan, waxaan kala soconana male. haddaba siyaasiyiinta
waxaan leeyahay war dalka ku hogaamiya siyaasad degan oo iswaafaqsan oo maxaa la yidhaahdaa aad ummadda kusoo jiidanaysaan. maantay qalinka adinkaa haysiin, awooddiina adinkaa haysiin. looma baahna inaad u isticmaashaan qarankii, dhaqaalihiisii iyo awooddiisii iyo ciidankiisii inaad dadka ku caburisaan oo aad maamulada ku burburisaan oo aad maamulada ku riixdaan. waxaa loo baahan yahay maanta Soomaaliya waxay maraysaa meeshii la isku keeni lahaa oo la isku baryi lahaa oo la isku maxaa la yiraahdaa la isku soo dumi lahaa. siyaasadda aan kala adkaano walaalayaal bedela oo u bedela aan iswaafaqno oo aan dalka siyaasad midaysan oo isla ogolaansho aan ku hogaamino. haddaba dhalinyarada waxaan kula dardaarmayaa waxaad ogaataan inaan dalkan wada leenahay, kheyraadkiisa ku jirana aan wada leenahay, inaan wada ilaashanana ay waajib tahay ee aynaan u kala helin siyaasiyiin maxaa la yiraahdaa aan dalka iyo dadka iyo diinta midna tabar u haynin, wax wanaaga aan u haynin. waxaan rabnaa siyaasigu hadduu fikir keensado oo fikir wanaagsan unaga gado inaan taageerno, hadduu naga gedi waayana inaan nidhaahno siyaasi naga joog, waxaaga waxa aawadid ma soconayaan. hal midna ogaada, dalkayaga si kastoo aan ugu kala fikra duwannahay annagaa iskale, annaguna fikirkayagu hal mid ma noqonahay, laakiin waxa aan wada leenahay waa inaan ogaanaa oo ah dalka, hantida dhex taalla, qaranka, sirtiisa, difaaciisa, hubkiisa, xoolihiisa, kuwa taariikhdiisa iyo sharcigiisaba intuba waa lama taabtaan. cidna laga yeeli maayo inay qolo kale u gudbiso oo ama ay bannaanka keento ama ay dayacdo, ma laga yeelahayo. marka ay timaado danta qaranka iyo danta qaaska ama danta maamul goboleedka ama danta qabiilka, marnaba lama keenayo in la qaato midda qaaska. waxaa la rabaa in la qaato midda guud oo danta guud la ilaaliyo si jiritaankeegu uusan meesha uga bixinin. anagu dhulkayaga waa isku qaqabsan karnaa, waa ku kala fikrada duwanaan karnaa, waana ku kala tartami karnaa xukunkiisa iyo hoggaankiisa, laakiin marnaba ma yeelayno in dalka maantay halista ugu tirada badan ay kusoo wajahayso in maxaa la yiraahdaa dad dibadda ka yimid loo shaqeeyo. hadday tahay siyaasi iyo hadday tahay xukuumad iyo hadday tahay baarlamaan iyo hadday tahay maamul goboleed iyo hadday tahay qabiil, midnaba kama yeelayno inay dalka burburiyaan oo ay ka dhigaan waddan aan jirin ayagoo ka cararhaya siyaasi kale oo ay ku kala fikir duwan yihiin. siyaasiga fikirka waa lagu kala duwanaan karaa, dowladda waa la mucaaradi karaa, laakiin mucaaradnimada dowladda la mucaaradahay ma ahan mid qarannimada ka hor imaanaysa ayaysan noqonin, mid sharciga ka hor imaanaysa ayaysan noqonin, mid ka hor imaanaysa ayaysan noqonin maxaa la yiraahdaa isheg jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo dalka xorta ah ee maantay halista ku jira oo cadowga tirada badan leh uu afka usoo kala hayo. waxaad ogtihiin sirdoonka adduunka oo dhan inay Soomaaliya joogaan. waxaad ogtihiin quwadihii adduunka oo dhan hadday tahay NATO iyo hadday tahay maxaa la yiraahdaa Warsaw Ruush ahaan jirtay iyo maxaa la yiraahdaa ishag Hindiya iyo maxaa la yiraahdaa Turkiya iyo maxaa la yiraahdaa Shiine, waxaas oo dhan inay maanta Soomaaliya ku soo wada jeedaan oo kheyraadkooda rabaan inay boobaan oo ay dalal kale noo soo adeegsanayaan oo ay nooga faa'iideysanayaan kala qaybsanaanteena. marka dhalinyaroy intaana dhiman iga dhaxal waxaan idin leeyahay barta waxaad wada leedihiin iyo waxa aad kala leedihiin. waxaad wada leedihiin iyo waxa aad kala leedihiinna waxaa badan waxa aad wada leedihiin. waxa aad kala leedihiin waa yar yahay, waa magacaaga iyo abtirsigaaga iyo qoyskaaga iyo reerkaaga iyo xaaskaaga iyo hantida aad adigu qaas u leedahay. dalka dhan hawadiisa, baddiisa, cirkiisa, dhulkiisa, xuduudihiisa, waxa hanti dhex taalla waa wada leenahay, waa inaan wada ilaashanaa. dekada hadday tahay, hadday aeroboort tahay, hadday waddooyin tahay, hadday webiyaal tahay, hadday dhir tahay, hadday beero tahay, haddii ay tahay haro, hadday tahay inaan wada ilaashanaa. deegaanka waa inaan wada ilaashanaa. wixii dhibaya waa inaan ka wada celinaa. wixii goynaya geedaha waa inaan ka hortagnaa oo nidhahnaa war dhirta naga jarin. buuraha la baabi'inayo oo la raranayo dhagaxooda waa inaan nidhahnaa joojiya. buuruhu dhulkayaga ayay hayaan, dhulkayaga ayay u yihiin calaamado, dhulkayaga ayay qurux u yihiin, dhulkayaga ay hawadu isu jiidaan. lama baabi'inayo, lamana isticmaalayo. haddii la isticmaalayo qaranka Soomaaliyeed ayaa isticmaalaya. waxaad ogtihiin dhagaxa in laga dhoofiyo berbera, waxaad ogtihiin buuraha kabadha in la wada qaatay, waxaad ogtihiin kuwii beledweyne in la wada jajabsado la qaatay, hantidii dalka taalay oo dhan waa la wada aruursaday. dad reer galbeed iyo tuugo iyo carab ayaa qaadanaysa. dhuxushii waa la qaatay, geedihii oo dhan waa la jarayaa. waxaa laydinka rabaa dhalinyaro, weliba dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa wax bartay iyo kuwa aan wax baranba
inay dalkooda u istaagaan oo ay qarannimadooda difaacaan. Yaan siyaasi reer galbeed u shaqeeyay iyo mid lacag wata oo ka keenay haddii ilaahay ku yirahdo dalal carbeed yuusan ini qaadanin. Bar xaggee ka keenay siyaasiga Soomaaliyeed ee laaluushka ku bixinaya bar qof ku siinaya dad gaaraya 1000 qof, halkii qofba uu siinayo $10,000, $20,000, $5,000, $4,000 xaggee buu ka keenayaa? Waa u jeedaan lacagtaas inay tahay lacag lagu baabi'inayo dalkayga. Hadhowna haddii waddankaas uu lacag uga baxdo 100 milyan ay uga baxdo, 100 bilyan oo dollar iyo ka badanba inuu ka helayo khayraadkayaga iyo ummadda Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inoogu deeqay ee ah beeraheena iyo xoolaheena iyo macdanteennaba. Marka dhalinyaro waa idin salaamaya. Fadlan fiidiyogan sii gaarsii qof kasta hadduu siyaasi yahay iyo haddii uu qof shacbi yahaba, haddii uu dowlad u shaqeeyo iyo haddii uu isagu iskiis u shaqeysto, hadduu ganacsado yahay iyo haddii uu qof caadi yahay, hadduu miyi joogo iyo hadduu magaalo joogo. Dalka annagaa iska leh, waana wada leenahay. Aan wada ilaashano sharcigiisa, dastuurkiisa, qawaaniintiisa, hantidiisa, hubkiisa iyo calaamadihiisa iyo xuduudihiisa, bad iyo bari iyo hawadiisaba inaan wada ilaashano ayaa noo ballana. Waana idin salaamayaa. Waa anigoo ah Cali Xirsi Kaarshe kuna magac dheer Cali Kabayare oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa mahadsantihiin intiinii dhegaysatay, intii kalena sii gaarsiiya.